Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wanaagsan akhyaaray meel kasta oo dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Waxaynu kusoo qaadan doonaa Arsenal oo wajigabax kala kulantay dalabkii ay ka gudbisay xiddiga reer Brazil ay isku hayaan Barcelona. Sadio Mane oo durba ka cadhaysay taageerayaasha Barcelona. Xiddig noqonaya saxiixa koobaad ee Manchester United oo xaqiijin uu doonayo Old Trafford. Heshiisyadii la saxeexay mustaqbalka Ousmane Dembele oo dhinac u dhacay iyo wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga. Intayna bilaabin fadlan ugu soo biir sina share garee like taadina waa muhiim aan ku bilaabay. Sadio Mane ayaa ka cadhaysay taageerayaasha Barcelona markii uu heshiis u saxeexay Bayern heshiis 3 sanadood ah, waxaana hadal saxaafadda u sheegay uu kala dilay isaga kooxda reer Spain. Laacibkan oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa la weydiiyay ciyaartii ugu xasuusta badnayd ee uu jeclaa waqtigiisa Liverpool ayaa waxa uu sheegay inay tahay semi-finalka Champions League ee 2019 oo ay 4-1 ku garaaceen Barcelona. Manchester United ayaa war farxad leh ka heshay xiddig la filayo noqon doono saxiixa koobaad ee Erik ten Hag ee xagaagan, kaasoo xaqiijiyay tababaraha cusub inuu doonayo inuu yimaado Manchester United. Garabka Ajax ee Anthony ayaa ogolaaday inuu tababarihiisa Erik ten Hag u raaco Old Trafford, taasi oo u fududeynaysa United inay gacanta ku dhigto mid ka mid ah xiddigaha ugu kalsoonida badan yahay ten Hag. Laacibkan oo kula guuleystay Ajax 2 horyaal muddo 2 sanadood ahayd oo uu ciyaarayay ayaa horumar badan sameeyay intii uu ka hoos ciyaarayay ten Hag, waxayna taasi keentay in loogu yeero xulka qaranka Brazil. 22 jirkan ayaa afka hore weerarka ka xoojin doona Manchester United kadib bixitaankii Lingard, Mata iyo Cavani, iyadoo weli ka xayran yahay Mason Greenwood oo ay dacwadi ku socoto. United oo weli aan ku guuleysan bartilmaameedkeedii koobaad oo ahaa Frank de Jong oo ay ka doonayaan Barcelona ayaa waxaa loo badinayaa in saxiixooda koobaad uu noqon doono Anthony, laakiin waxay dhibaato ka jirtaa dhinaca qiimaha oo ay Ajax dalbanayso lacag ay Manchester United ka warwareegayso inay bixiso. Ajax ayaa la sheegay in Manchester United ku xidhay 50 milyan, waxaana la fahansan yahay inay diidan yihiin inay fasaxaan laacibkan kadib markii uu ka tagay waryahankoodii Haller oo 60 milyan ay ku iibsatay Borussia Dortmund. Xiddiga reer Belgium ee Romelu Lukaku ayaa xalay in madaxa jisan waayay markii ay labada kooxood ee Inter Milan iyo Chelsea ay ku heshiiyeen inuu dib ugu laabto San Siro oo sanad amaah ugu soo ciyaaro. Waryahanka 29 jirka ayaa hoos u dhigay mushaharkiisa saa Inter Milan dib ugu la saxato sanad kadib markii ay 97 milyan kaga iibsay Chelsea. Laacibkan ayaa sidii uu filayay aanay wax u noqonin, waxaana uu saldhigi waayay Stamford Bridge oo 26 ciyaarood oo Premier League ah oo uu saftay oo u dhaliyay 3 gool oo kaliya, waxaana keedka u diray tababare Thomas Tuchel oo aan ku qancin qaab ciyaareedkiisa. Lukaku waxa uu ku biiray liiska ciyaartoyda waaweyn oo weerarka oo ku fashilmay Chelsea sida Alvaro Morata iyo Gonzalo Higuain. Kooxda Arsenal ayaa wajigabax kala kulantay dalab ay ka gudbisay garabka weerarka Leeds United iyo xulka qaranka Brazil ee Rafinha, kaasi oo shalay dalabkii ugu horeeyay ka gudbiyeen iyagoo uga hormaray Barcelona oo ay si aad ugu loolamayeen. 25 jirkan ayaanu jirin wax culays ah oo Leeds United ku kaliifaya inay iibiso xagaagan, sababtoo ah 2 sanadood ayaa ka harsan qandaraaskiisa. Hase yeeshee cadaadiska ay dareemayaan ayaa waxa uu yahay in aanu qandaraaska kordhinayn. Arsenal ayaa dalabkeedii koobaad shalay gudbisay, waxaase kusoo diiday Leeds United kadib markii ay Gunners awoodi weyday inay bixiso shuruudihii dhinaca lacagta. Hase yeeshee Mikel Arteta ayaa dalab labaad oo ay horumarin ku sameeyeen u diri doona Elland Road. Barcelona ayaa la fahansan yahay in aanay weli ku qoonsan saxiixa Rafinha oo wakiilu yahay xiddigii hore ee Barca ee Deco, kaasoo ka caawinaya kooxda reer Spain sida ay uga guuleysan lahayd saxiixa laacibkan. October 2020 ayuu xiddiga reer Brazil ku biiray Leeds United isagoo ka yimid kooxda reer France ee Rennes, waxaanu qalinka ku duugay heshiis 4 sanadood ah oo 2 ka mid ah uu durba dhamaystay. Arsenal ayaa sidoo kale wada hadal kula jirta Manchester City oo ay ka doonayso weeraryahanka reer Brazil ee Gabriel Jesus, waxayse Man City dalbanaysaa lacag gaadhaysa 50 milyan. Weeraryahanka reer Uruguay Edinson Cavani
ayaa iskii ula xiriiray kooxda reer Spain ee Real Madrid si uu ugu noqdo weeraryahanka labaad ee caawinaya Karim Benzema ama kursiga kaydka oo fadhiya, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Los Blancos ay iibinayso ama amaah ku dirayso Luka Jovic, sidoo kalena ay xagaagan meesha ka saarayaan Mariano Diaz. Edinson Cavani oo ka dhammaaday qandaraaskiisa United oo si xor ah uga tagaya, ayaa la sheegay inuu guri ka raadinayo magaalada Madrid ee caasimadda Spain, waxaana jira kooxo kale oo ay suurtagal tahay inuu tago haddii uu ku guuleysan waayo inuu xidho garanka Real. Atletico Madrid ayaa ka mid ah kooxaha la xiriirinayo, halka Rayo Vallecano oo ururistay ciyaartoyda rug-cadaaga ah ay isagana isha ku hayso, waxayna doonayaan inay meel isugu keenaan Falcao oo ay Uruguay wada dhasheen. Edinson Cavani ayaa la rumaysan yahay in aanu wax mustaqbal ah ku lahayn horyaalka Premier League maadaama ay da'diisu weynaatay, balse kooxaha yaryar ee Spain gaar ahaan Rayo Vallecano ay caqabad ku tahay mushaharka badan ee uu dalbanayo laacibkani oo ah 40 milyan. Cavani ayaa waxa uu doonayaa inuu ka ciyaaro horyaalka La Liga oo weliba fursad ka helo si uu uga mid noqdo xulka qaranka Uruguay ee bisha Noofambar ka qayb galaya Koobka Adduunka. Ousmane Dembele ayaa ugu dambeyntii u muuqda inuu sii joogayo kooxda Barcelona kadib markii ay wada hadleen Xavi Hernandez. Manchester City ayaa xiriir la sameysay laacibka khadka dhexe uga ciyaara Leeds United iyo xulka England ee Calvin Phillips oo ka mid ah ciyaartoyda uu doonaya Pep Guardiola, waxayna u arkaan beddelka ugu habboon ee rug-cadaagii ka tegay ee Fernandinho. Bayern Munich ayaa si rasmi ah ula wareegtay xiddiga reer Senegal ee Sadio Mane oo ay ka iibsadeen Liverpool, waxaana uu qalinka ku duugay heshiis 3 sannadood soconaya. wararkeena ciyaar waa naga intaas asxaabay, intaanu kulmi doono wararkeena kale. Wassalaamu calaykum.